hadalkaasoo kale maanta haddii la maqlo markiiba liis baa lagu gelinaya waa guulwada iyo madaxweynaha wax isu yihiin iyo waxaasaa lagu odhanaya laakiin de arrintu waa diin waxaa kutubta ku qoran weyn nusuustu ay dhigaysa mana aha sida dadkan axsaabtan iyo waxaan ishaystee kursiga isku haysta hadalkoodoo kale maaha oo hadal marxaliya maaha iyaga hadalkoodu wuu isbedbedelaa markay mucaarid yihiin hadal bay odhanayaan marka ay xukunka qabsadaan iyaga laftoodii hadalkii hadal khilaaf mar walbana sida nusuustu ay sheegtay iyo qaabka xaakimka muslimka loola dhaqmayo waxa jecel ninka xukunka haysta oo isaga kursigiiba xaasilo ah kaan kursiga haystane doonayaana ma ogola wadaadka ka hadlayana waxa weeyaan raalli kama ah baa maalintii dhaweeda jimca wuxuu ii soo diray hadal aan mar hore idhi oo la duubay aan filaya sanad ka hor meelahaasuu ahaa tafsiirkii sheekh cabdiraxmaan masaajidka almadiina uu ku dhigay habeenkii la khatimiyey baa baabkan wuxuu ka hadlayaa dadka buqaadda la idhaahdo isagaa inoo qeexi doona sifadooda waxay buqaad ku noqonayaan iyo axkaamtooda waxaa buqaad loo yidhi limujaawazatihim alxadda xadkii shareecada u yeeshay bay ka tallaabeen oo daacadii xaakimka muslimka lagu waajibiyey bay diideen amar diidday sameeyeen ama xuquuq lagu lahaabay manciyeen oo ay bixin waayeen marka buqaadu waa kuwa imaamka khilaafa xaakimka muslimka ah ee amar diidda ku sameeyay ilaa annaga wax daacaa naguma laha waxaan anagu adeeci mayno xaakimba anagu uma aqoonsanin gebigiisaba inuu madaxweyne yahay gebigiisaba uma aqoonsaninba wax xuquuqdii madaxweynuhu uu lahaa oo anaga uu nagu leeyahay ma jirto weliba waxay buqaad noqonayaan haddii ay markaa wax isku toosisanayaan oo ay leeyihiin wuuna dulmiyeeyo xaqa iyagaasuu duudsiyeeyo dulmigaasuu sameeyo haddii ay leeyihiin bay buqaad noqonayaan la soco haddii sadee ay yihiin kuwo ictiqaad ku socda kuwa khawaarij baa iyaga la idhaahdaa oo ay leeyihiinba dee ninkani waa xaakim bikayri maa anzala allahu iyo dee waa kaafir ba ay leeyihin marka casrigan aynu joogno buqaadu way iska badan yihin dad fara badanina iyagoon is ogeyn bay buqaad yihiin weliba waxaan dimuqraadiyadda iyo xisbiyadan iyo waxaan la sameeyey ayaa dadka inta badan baqiga ku rida ila xaakimku mar hadduu isagu amarkii iyo nahyigii leeyahay xataa hadduu fisqi sameeyo dee casilmi maayo mar haddii isagu weli suldadii u haystana isaga xaakim meesha ka ah adiga markaa kuma banaano isagoo muslima inaad tidhaahdo maadaama waxa uu sameeyey ama arrintaa uu naga aqbali waay ama xaqa iyagaa uu duudsiyey ama uu qodobkaa tusaale ahaan khilaafay laysa lahu calayna aaca xaakimnimadiisa ma aqoonsaninoo wax aacaa naguma laha inaad tidhahda kuma banaana waayo ilaahay baa subxaana watacaala kugu waajibiyey wixii macruufa ee aan xaaraan ahay inaad ku adeecdo ya ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha waaiicu rasuula wa uli lamri minkum inuu markaa xaq aad leedahay uu duudsiyey ama dulmi uu sameeyey ama wax heshiis lagu ahaayo laysku ogaa uu khilaafo xaqii uu aaca adeecitaanka ku lahaa meesha ka saari maayo kama saaraya meesha hadalkaasoo kale maanta haddii la maqlo markiiba liis baa lagu gelinaya waa guulwada iyo madaxweynaha wax isu yihiin iyo waxaasaa lagu odhanaya lakin de arrintu waa diin waxaa kutubta ku qoran weyn nusuustu ay dhigaysa wey mana aha sida dadkan axsaabtan iyo waxaan ishaystee kursiga isku haysta hadalkoodoo kale maaha oo hadal marxaliya maaha iyaga hadalkoodu wuu isbedbedelaa markay mucaarid yihiin hadal bay odhanayaan marka ay xukunka qabsadaan iyaga laftoodii hadalkii hadal khilaafsan bay odhanayaan mar walbana sida nusuustu ay sheegtay iyo qaabka xaakimka muslimka loola dhaqmayo waxa jecel ninka xukunka haysta oo isaga kursigiiba xaasilo ah kaan kursiga haystane doonayaana ma ogola wadaadka ka hadlayana waxa weeyaan raalli kama ah nin baa maalintii dhaweeda jimca wuxuu ii soo diray hadal aan mar hore idhi oo la duubay aan filaya sanad ka hor meelahaasuu ahaa tafsiirkii sheekh cabdiraxmaan masaajidka almadiina uu ku dhigay habeenkii la khatimiyey bay ahayd waan xusuustaayo hadalkaasoo ku saabsanaa dee inaanay sharci ahaan banaanayn xaakimka muslimka iyo shacabkiisa in layska hor keeno
maantana caalamulislaami dad arrintaas samaynaya oo diin u food saaraynaya ama siyaasiyiin kursi doone inay fasaahadiyeen ku fasaahadiyeen dowladihii islaamka iyo shacabkii inay iska horkeenayaan marka waxaan idhi siyaasiyiinta kursi doonka ah ee ku hadlaya ama samaynaya wax dowladnimadiina baabiinaya ha dhegaysanina maalmahan dhoweydee layshaystay baa hadalkii la faafiyey show qolooyinkii mucaaridkaabuu hadalku gaadhayo aad bay uga xanaaqeen waa sidaan sheegaye inaan markaa saaxiib nahay oo xogeeyayaasha mucaarida ka mida waa jimcihii soo diray waxba imuu soo raaceen hadalkaygu dib iigu soo celiyey marka waan la hadlo waxaan ku uri war hebel muxuu ahaa waxaana ii soo dirtay tana wuxuu ihi mid xisbigeegaabaa ii soo dirayoo oo ka xanaaqsanaay oo lahaa bal wuxuu ku hadlayee markaa nin aanu isnaqaan weeye ninkaas waxaan ku iri buu ihi kulmiya markay mucaaridka ahaayeenba sheekh berberaawiintaasunbuu lahaa maaha macnaa wax idinka si gaara idinku wajahaan maaha isagu masala diiniya siduu u arko sax u arko ayuu isagu u sheegaya masalada iska daa ku habsaamin baan ku iri buu ihi marka waxaan ku idhaa marba qolada mucaaridka war marka aad xukunka qabsataan baadna ogolaan doontaane iminka dembi un baan idinkala cararana iminkana na ogolaaduna dhegeysta waay baabkan wuxuu ka hadlayaa dadka buqaadda la idhaahdo isagaa inoo qeexi doona sifadooda waxay buqaad ku noqonayaan iyo axkaamtooda waxaa buqaad loo yihi limujaawazatihim alxadda xadkii shareecada u yeeshay bay ka tallaabeen oo daacadii xaakimka muslimka lagu waajibiyey bay diideen amar diidday sameeyeen ama xuquuq lagu lahaabay manciyeen oo ay bixin waayeen marka buqaadu waa kuwa imaamka khilaafa xaakimka muslimka ah ee amar diidda ku sameeyay ilaa annaga wax daacaa naguma laha waxaan anagu adeeci mayno xaakimba anagu uma aqoonsanin gebigiisaba inuu madaxweyne yahay gebigiisaba uma aqoonsaninba wax xuquuqdii madaxweynuhu uu lahaa oo anaga uu nagu leeyahay ma jirto weliba waxay buqaad noqonayaan haddii ay markaa wax isku toositoosisanayaan oo ay leeyihiin wuuna dulmiyeeyo xaqa iyagaasuu duudsiyeeyo dulmigaasuu sameeyo haddii ay leeyihiin bay buqaad noqonayaan la soco haddii sadee ay yihiin kuwo ictiqaad ku socda kuwa khawaarij baa iyaga la idhaahda oo ay leeyihiinba dee ninkani waa xaakim bikayri ma anzala allahu yo dee waa kaafir ba ay leeyihin marka casrigan aynu joogno buqaaddu way iska badan yihin dad fara badanina iyagoon is ogeyn bay buqaad yihiin weliba waxaan dimuqraadiyadda iyo xisbiyadan iyo waxaa la sameeyey ayaa dadka inta badan baqiga ku rida ila xaakimku mar hadduu isagu amarkii iyo nahyigii leeyahay xataa hadduu fisqi sameeyo dee casilmi maayo mar haddii isagu weli suldadii u haystana isaga xaakim meesha ka ah adiga markaa kuma banaano isagoo muslima inaad tiraahdo maadaama waxa uu sameeyey ama arrintaa uu naga aqbali waay ama xaqa iyagaa uu duudsiyey ama uu qodobkaa tusaale ahaan khilaafay laysa lahu calayna aaca xaakimnimadiisa ama aqoonsaninoo wax aacaa naguma laha inaad tidhahda kuma banaana waayo ilaahay baa subxaana watacaala kugu waajibiyey wixii macruufa ee aan xaaraan ahay inaad ku adeecdo ya ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha waaiicu rasuula wa uli lamri minkum inuu markaa xaq aad leedahay uu duudsiyey ama dulmi uu sameeyey ama wax heshiis lagu ahaayo laysku ogaa uu khilaafo xaqii uu aaca adeecitaanka ku lahaa meesha ka saari maayo kama saarayo meesha hadalkaasoo kale maanta haddii la maqlo markiiba liis baa lagu gelinaya waa guulwada iyo madaxweynehay wax isu yihiin iyo waxaasaa lagu odhanaya lakin de arrintu waa dib waxaa kutubta ku qoran wey nusuustu ay dhigaysa wey mana aha sida dadkan axzaabtan iyo waxaan ishaystee kursiga isku haysta hadalkoodoo kale maaha oo hadal marxaliya maaha iyaga hadalkooda wuu isbedbedelaa markay mucaarid yihiin hadal bay odhanayaan marka ay xukunka qabsadaan iyaga laftoodii hadalkii hadal khilaafsan bay odhanayaan mar walbana sida nusuustu ay sheegtay iyo qaabka xaakimka muslimka loola dhaqmayo waxaa jecel ninka xukumka haysta oo isaga kursigiiba xaasilo ah kaan kursiga haystane doonayaana ma ogola
wadaadka ka hadlayana waxa weeyaan raalli kama aha nin baa maalintii dhaweeda jimca wuxuu ii soo diray hadal aan mar hore idhi oo la duubay aan filaya sanad ka hor meelahaasuu ahaa oo tafsiirkii sheekh cabdiraxmaan masaajidka almadiine uu ku dhigay habeenkii la khatimiyey bay ahayd waan xusuustaayo hadalkaasoo ku saabsanaa dee inaanay sharci ahaan bannaanayn xaakimka muslimka iyo shacabkiisa in layska hor keeno maantana caalamulislaami dad arrintaas samaynaya oo diin u food saaraynaya ama siyaasiyiin kursi doone inay fasahadiyeen ay ku fasahadiyeen dowladihii islaamka iyo shacabkii inay iska hor keenayaan marka waxaan idhi siyaasiyiinta kursi doonka ah ee ku hadlaya ama samaynaya wax dowladnimadiina baabiinaya ha dhegaysanina maalmahan dhoweydee layshaystay baa hadalkii la faafiyey show qolooyinkii mucaaridkaabu hadalku gaadhayo aad bay uga xanaaqeen waa sidaan sheegaye inaan markaa saaxiib nahay oo xogeeyayaasha mucaarida ka mida waa jimcihii soo diray waxba imuu soo raacin hadalkaygu dib igu soo celiyey marka waan la hadlo waxaan ku uri war hebel muxuu ahaa waxaanad ii soo dirtay deetana wuxuu ihi mid xisbigeegaabaa ii soo dirayoo oo ka xanaaqsanaay oo lahaa bal wuxuu ku hadlayeen markaa nin aanu isnaqaan weeye ninkaas waxaan ku idhi buu ihi kulmiya markay mucaaridka ahaayeenba sheekh berberaawiintaasunbuu lahaa maaha macnaa wax idinka si gaara idinku wajahan maaha isagu masala diiniya siduu u arko sax u arko ayuu isagu u sheegaya masalada iska daa ku habsaamin baan ku idhi buu ihi marka waxaan ku idhaa marba qolada mucaaridka war marka aad xukunka qabsataan baad na ogolaan doontaane iminka dembi un baan idinkala cararna iminkana na ogolaaduna dhegeysta waay